kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo alaabaad ka daawataan war wixii dunida dacaladeeda ka jira fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar qodobada aad ku maqli doontaan warkeenana waxaa ka mid ah caleemasaarkii Jubbaland oo dibdhac ku yimid iyo wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo shirarka ka socda magaalada Muqdisho duqa magaalada Muqdisho oo faragelin ku sameeyay xiisadda ka dhaxaloosan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo Kenya ay dalbatay mar kale in dib loo dhigo dacwadda furmaysa November 4-teeda musharaxiinta isbedel doonka ah oo saakay shir jiraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo oo weerar ku qaaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladda Kenya oo ka hadashay eedeymo dhowr ah oo dhawaan uga yimid dowladda Djibouti oo ay ku jiraan loolan helitaanka kursi ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka xogta maanta aynu ku bilaabana daawadayaal dib u dhaca caleemasaarka Jubbaland iyo wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka iyo shirarka ka socda magaalada Muqdisho iyadoo saacadihii la soo dhaafay uu dalku galay xaalado siyaasadeed oo ka dhashay go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo saartay xayiraadii diyaaradaha aadayay magaalada Kismaayo iyo xanibaadii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa abuurmay jawi siyaasadeed oo aan la qiyaasi karin halka uu ku dhamaanayo marka la eego falcelinta kala duwan ee ka soo baxaysa dhinacyada kala duwan ee xaaladahaasi qaybta ka ah madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si adag uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalku hadda wajahayo iyagoo eedeyn u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya sheegayna inay ku xadgudubtay dastuurka dalka iyo sharciga isla markaasna ay qaaday tallaabooyin aan habboonayn oo keeni kara dib u dhac dalka inkastoo ilaa ay hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya aanay si rasmi ah uga hadlin xaaladaha siyaasadeed iyo walaaca ka soo yeeray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya haddana waxaa socda kulamo gaar ah oo la xiriira arrintan iyo qaabka looga falcelin lahaa ila kala duwan ayaa sheegaya in saacadaha soo socda ay kulamo yeelan doonaan kusimaha madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyagoo ka hadli doona xaaladda dalka ku soo korortay warar kale ayaa waxa ay sheegayaan inay jiraan wada tashiyo ay yeelan gudoonka labada aqal oo la xiriira xaaladda taagan isla markaana dadaal xal u raadin ah ku jira sidii xiisadan loo qaboojin lahaa wakiilada beesha caalamka ee fadhigeedu yahay xalane ayaa iyaguna si dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee ku soo korortay dalka waxaana jirin wax war ah oo ilaa ay hadda ka soo baxay inkastoo ay jirto hadal hayn ah in laga yaabo in shirka madasha iskaashiga Soomaaliya lagu wado in labada bisha Oktoobar uu dhaco dib u dhac uu ku iman karo sabab la xiriira xiisadaha siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka dhinaca kale waxa ayna jira wada hadallo kala duwan oo ay leeyihiin asxaabta siyaasadeed ee dalka waxaana hoyga uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed magaalada Muqdisho ka socda kulamo aan kala go' lahayn waxaana la sheegayaa in maanta wada hadallo dhanka qadka taleefanka ah ay yeelanayaan madaxweynayaashii hore madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland sidoo kale go'aanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay ee ku saabsan xayiraadda 3 cisho ee la saaray diyaaradaha aadaya Kismaayo ayaa dhaqan galay ma jirto ilaa ay hadda diyaarad rayid ah oo Muqdisho ka dhooftay oo Kismaayo ka degtay taasi oo looga gol leeyahay in lagu baajiyo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo lagu wado inay dhacdo 26 bishan aan ku guda jirno maamulka Jubbaland ayaa wali si rasmi ah u shaacin in xafladdu dib u dhac uu ku yimid iyo in kale waxaana ila kala duwan oo aan helnay ay noo sheegayaan in wali go'aanka sidiisii uu yahay oo aanay jirin wax isbedela lana filayo in wufuud hordhaca oo marti ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka ay bari soo gaari doonaan magaalada Kismaayo iyagoo dhanka magaalada Nairobi ka imaan doona
hadalhaymo kala duwan ayaa ka soo baxaya oo ahaa in sababaha ugu weyn ee loo xiray duulimaadkii Kismaayo ay tahay baajinta xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo ku beegan 26 bisha oo xilliga la filayo in madaxweyne Farmaajo uu khudbad ka jeediyo shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaasna aynay isku soo aadin xafladdaasi iyo wufuudda ka qayb galaysa shirka qaramada midoobay iyo madaxweyne Farmaajo khudbadda uu soo jeedinayo. duqa magaalada Muqdisho ayaa soo farageliyay xiisadda ka dhex aloosan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu sareysa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Filish ayaa ka hadlay xiisadda cirka isku shareertay ee ka dhex aloosan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sheekh Shariif oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabadii dowladdu ay shalay ku hor istaagtay inuu u dhoofo magaalada Kismaayo isagoo xusay in hannaanka dowladdu ay u dhaqmayso uu halis gelinayo jiritaankeeda. gudoomiye Cumar Filish oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa ugu baaqay Sheekh Shariif inuu u hoggaansamo awaamiirta dowladda federaalka ee Soomaaliya uuna u dhaqmo sidii qof mas'uul ah. waxaan ka codsanayaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu u hoggaansamo awaamiirta dowladda kama waadin ahaan misna uu ka fogaado wax kasta oo sii hurin kara khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayuu Cumar Filish ku soo yiri bartiisa Facebook. dhinaca kale duqa magaalada Muqdisho ayaa u baaqay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya una sheegay inay wada hadal ku xaliyaan khilaafka jira. waxaan sidoo kale ka codsanayaa madaxda qaranka ay qusayso arrintan in wada hadal iyo isafgarad lagu dhameeyo khilaafka ka jira sida Jubbaland iyo tan shakhsiyaadka si uusan waqti inooga dhumin iskiidkiidka dhexdeena ah oo misna ay hakad aysan u gelin adeega bulshada iyo qaranka intaba ayuu yiri Cumar Filish. Cumar Filish oo sii hadlayay ayaa xusay in dalkeena waqti xaadirkan uusan u baahnayn khilaaf ee uu u baahan yahay in xal iyo wada tashi kasta lagu dhameeyo oo ay dhibaato tahay in dalku waxan uu ku sii jiro. murankii badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya ayaa Kenya mar kale soo celisay waxayna maxkamadda ICJ ka codsatay in dib loo dhigo dacwadda baddaasi. Kenya ayaa la xaqiijiyay inay mar kale dib uga laabatay maxkamadda qaadaysa dacwadda badda ee ICJ iyadoo sheegtay in ay ku yar tahay 2 bil ee la siiyay ku eg November 4 waxaana maxkamadda cadliga ka codsatay mar kale in waqtiga loo kordhiyo. ila wareediyo ayaa waxa ay sheegeen in Kenya ay horay ugu hungowday in muranka badda xal looga gaaro meelo ka baxsan maxkamadda. waa sida ay in badan isku dayday Kenya arrintaasi ayaa noqotay mid u socon weysay Kenya waxayna isku dayaysaa in ay wada kala marto maxkamadda ICJ. weli lama aysan soo xiriirin Soomaaliya lamana oga waxa Muqdisho ay ka yeeli doonto haddii loo soo bandhigo codsigaasi Kenya ay u gudbisay maxkamadda ICJ. Kenya ayaa horay maxkamadda u codsatay in 12 bil dib loo dhigo. musharaxiinta isbedel doonka ah ayaa saakay shir jiraa'id ku qabtay kuwaasi oo ku sugan magaalada Kismaayo. Cabdinaasir Seraar iyo Cabdirashiid Xidig oo horay u sheegtay inay yihiin madaxweynayaasha maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda maamulkaasi iyo dhacdadii Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maalin ka hor lagu diiday inuu gaaro magaalada Kismaayo. ay sheegeen xubnahan in xaaladda cakiran ee Jubbaland aan dab lagu sii shidin iyagoona ka dalbaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya in uusan soo aadin magaalada Kismaayo. Cabdinaasir Seraar iyo Xidig ayaa si wada jir ah u sheegay in Kismaayo aysan noqon karin meel lagu mucaarado dowladda dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa dhankiisa ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya in sidii waajibka ku ahayd uusan uga hadlin xaalka Jubbaland oo uu doonayay inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe. waxaa sii kordhaya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiin mucaarada oo doonaya inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland.
dowladda Kenya ayaa ka hadashay eedeymo dhowr ah oo dhawaan uga yimid dowladda Djibouti oo ay ku wada loolamayaan kursiga qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf oo warbaahinta la hadlay dhawaan ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya aanay laga aamini karin amniga gobolka ayna abuureyso xiisado. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sidoo kale si kulul ugu jawaabay eedeynta uga timid dowladda Djibouti waxa uuna sheegay in nasiib darro iyo qalad ay tahay in Djibouti ay ku eedeyso xasilooni darro Kenya. hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti walaalkay Maxamuud ee uu ku sheegay in Kenya aan lagu aamini karin nabadgelyada gobolka waa mid nasiib darro ah, waa mid khalad ah sababtoo ah Kenya ilaa markii xornimada ay qaadatay waxa ay ahayd waddan ka shaqeeya nabadda iyo xasiloonida gobolka, ayuu yiri Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda. Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in Kenya ay ka qayb qaadanayso xasiloonida iyo nabadgelyada wadamada Afrika ku yaala oo ay ku jirto Soomaaliya. Waxa uu xusay in ciidamo ka badan 40,000 oo Kenyaan ah ay ku maqan yihiin nabad ilaalin. waxaan ka qayb galnay dib u heshiisiintii wadamada Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya, Namibia, Sierra Leone, Liberia ilaa DRC. waxaana ka qayb nahay wadamada uu Mareykanku ka mid yahay ee la dagaalanka kula jira ururka argagixisada ah iyo buraadbadeeda, ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa Djibouti ugu faanay in hadda ay wataan calankii midowga Afrika ayna kaga guuleysteen Djibouti codkii midowga Afrika ayna ku qaadeen matalaadda kursiga bannaan ee qaramada midoobay. Annaga hadda waxaan wadanaa calankii midowga Afrika. Djibouti waxaan ku kala baxnay codeyn, waxaana helnay 37 cod, iyaguna waxay heleen 13 cod. marka waxaan leenahay walaalkeen Maxamed oo ah nin wasiir ah oo sharaf leh in haddii ay Djibouti weli sii wado ololahaasi ay ka dhigan tahay mid diblomaasi ah, ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. dowladda Djibouti iyo Kenya ayaa waxa ay ku wada jiraan loolan adag oo la filayo midkood inuu ku guuleysto kursiga qaramada midoobay. waa tahay daawadayaal warkeennii oo idinkaga imaanaya xogta maanta intaas ayuu ku ogyahay. fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-kan ku leenahay subscribe saar, siina share garee si asxaabtaada ay u gaarto xogta aad heshay mid la mid ah.